nin xaaji oo Soomaaliya xaj ku tagay baabuuro iyo tareenno iyo diyaarado badan iyo waxaas ma jiro wuxuu ka baxay Jidda Makka Madiino xaaskiisa yaa la socotay markii uu ka soo noqday Madiina jidad laamiya xataa ma jirin dhulkaasoo fakhri buu ahaa waagaas ayaa askari jidka istaajisay nimankii askarta ahaa ee bointigaa joogay islaantii baa hunguri ka galay xaajigaas watay way dejiyeen labadoodiiba markay dejiyeenna waxaa islaantii waa lagu xadgudbay way iska aamustay odagii dhinac baa la geliyey iyadana dhinac shibbay tiri waxay tiri ama odagana lagaa dilaa balaayo kale intay kuu raacdo ceebtii iyo xadgudubkii ama haddana odagana lagaa dilaa ya iska aamustay markay soo dhowaadeen oo gaariga ka soo baxeen meeshii ayaa odayga u sheegtay odagii baa baxay ani xaadisada waxaa ii sheegay nin odaya oo da' ah oo Soomaali ah oo dhulkaas dadkii ku koray 100 sano ka hor Xijaaz waxaa dhacday marka maxaa dhacday ninkii oo dee erdigiisii lagu xadgudbay oo caraysan oo miskiina baa yimi wuxuu imaaday Jidda subaxdiiba wuxuu tegey safaaradda Soomaalida safiirkii buu la wuxuu ku yiri saasaa igu dhacday waa muwaadin Soomaali safiirka madaxu ruuxay waraaqihii weli maanan keenoo waxbaa maaragtay weli wasaaradda iyo kama aan soo dhamaano meesii saas bal waa fiirinayna xaaladda waa fiirinayna nin odayaasha Soomaaliyeed oo hore ah oo dhiig lahaa oo dadnimada lahaa oo ciidada iyo sharafta yaqaanay ayaa hor fadhiyay hortiisa fadhiyay intuu ishayn waayay buu dharbaaxa safiirkii kaga soo gooyay labada indhood buu jaray kaasuu yiri غير مسؤول dameer ahbaata muwaadin baa ku yimi ardaygiisa lagu xad gudbay waxaad meesha u fadhidaa isaga khidmadiisa weey kaasa leeyahay soo ninkii gacanta soo qabtay in la yaqaanana uu soo kaxay wuxuu u keenay boqor Faysal oo markaas wuxuu yahay amiir dalkan Xijaaz markaa mas'uulka soo galay dhageysu yiri ninkan dhageysu ninkii talada wixii buu sheegay Faysal wiilkiisi kullu waa dhinteen hadda Sacuud al-Faysal dhigi jiray wasiir khaarijiye ahaan jiray oo markaa wiil yar oo isaga la shaqeeyaa u yar kaalay bax diyaarad helicopter hal diyaarad bay haystaan qaado afartan nin oo askarta meeshaas joogta soo xira keena taxqiiqiye arinteeda isoo ogaaday wax yar hadii la keenay nimanka la soo qabtay wuu baxay ninkii nimanka soo tusay waa la keenay xogaa hadii la joogay waa qirteen arintii horogo gooyay afartoodaba hal salbiyo hana la dilo afartiiba waa la dilay markii la dilay ayaa meydaankii qisaasta Jidda lagu sameyn jiray dad baa yaqaanay reer Xijaaz joogi jiray ya meedaanul bay'a meel la yiraahdo Jidda bartamadeeda ku taalo waxaa jirtay dadka qoorta qisaasta lagu sameeyo ama xuduudda lagu oofiyo halka ha lagu salbiyaa dadka oo dhamay hadda wadaan wax dhowr iyo 68 meelahaas أسبوع وحكوا له ماشي أفرتي أسكري صار معين يا يقول ميدا